dogtihiin lamaana isdoortayo wadaaga dareentihiin ilaa xad isteeqayo istawadaatihiin inaad isku dogtihiin lamaana isdoortayo wadaaga dareentihiin ilaa xad ilaahay baa subxaanahu wa tacaala mahad iskale mahad meelay ku dhammaatay iyo meelay ka bilaabatay aanay jirin ilaahay baa subxaanahu wa tacaala ay u sugnaatay alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض من هذا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا ليلا لباسا وجعلنا نهارا معاشا وبنينا فوقكم سبع شدادا الحمد لله رب العالمين صفقا abtiyaday ee halkan fadhiya waxaanu weydiisanaynaa inantaasoo ah samiire maxamuud maxamed oo aanu u doonayno cabdijibbaar cabdilaahi cismaan safiya quriya qabiilaba waxaanu doonaynaa inantaa inaana siisaan noona meherisaan haddii ilaahay ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam madaxda dowladda amase gobolka salaadiinta siyaasiyiinta codkarka reerka dhammaan waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ilaahay dembigeenna ha dhaafo dembigii waalidkeenna alla ha dhaafo كمؤمنين الله ضاف شرط الله إنه وافجيه وحين الله إنه قدقه مصيبين كوريجي أنا الله إنه قلنا بتجليه حنونا إننا نركب شري الله إنه قلنا بتجش إلهي إنه قلنا بتجليه شوف شيء حنونا ده شري اللي بعتوين كشري الله إنه قصاره أبار باشرتي أبار تهلين الله إنه قلنا بتجليه إلهه أبار تنجش بياديك غفور رحيمه قلوبta dadka Allah ay soo jeediyo inanta la yiraahdo Samiira Maxamuud Maxamed Salebaan oo u doonaysaan Cabdijibbaar Cabdilaahi Cismaan quriya qabiilaba waanu idin siinay waana idin meherinaynaa hawsheedana waanu idin dhamaynaynaa وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عبد الجبار لا عثمان إن أنت له سميرة محمود محمد سليمان وقرب كي جمدك وفردي هدنا الشيخ عبد الولي عبد الله محمود أبيهد وولاية النكاح ووكيل شيء بمثابة الوكيل عن وجاهي مهر كيدنا مسمى لما جعبه يهي صدق كنا $1 ويهي هدنا الشيخ عبد الولي وانكون نكاحي وانكون قرين نكاحي يقول كده باقش وأنا أقبل النكاح يقول كذا. شهودنا وحن قري عاقل أحمد بن قري إياه سجل عبد يومه جودهان ومقلسان مركب وسط حكومة $1 مهركي لبضع أنا مركب عين هام بن قري إلهي سبحانه وتعالى وحن قبرين نقول مقصد كسوة أولاد صالحين الله سيه در مسلمين تردنا أنفع الله سيه درب القيس أنفع الله سيه
anaga lafteen waxaan asku noqo islaam Allah inaga jarsiyo khayr adduunyo mid aakhir waxaan niyeysana Allah inoo jumciyo oo bil khusuusan gaar ahaan labada awlaada Allah subhanahu ilaahu subhanahu بارك الله لك وبارك عليكما وجمع بينكم بالخير أو بالخير إن شاء الله. حفلة بلان شرفت له اللي يسوي يمي حفلة اللي يسوي ديستي لابد أن نعبوا السلام عليكم السلام يا سلامة الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد السلام ومضل بلان واللي يسوي ديستي ضد ويدعي يوم بيوبا هنتهاي waxaan leenahay inankiyo inanta وبارك الله بارك علينا وجمع بينكم وبخير ducadii rasuulkaan ugu ducaynaynaa intaas waa taa mid kaftana baan oranayaa halkan waxa ka muuqda laba laandheere oo hablays weydiistay iyo inamo laandheera waxa lagu yaqaanaa inuu ama colaad wado ama nabad halkan waxa ka muuqata maanta inuu nabad wado uu isweydiistay hablo oo la siiyay wayagana saasaan ugu ducaynaa labada laandheere maanta kala guursaday beelaa kala hogaaminaya markaasina waa iga kaftan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa laba janaaxo aan kala fogeyn wada dhashay isdhalay xidida laleeyi ah deris ah wax kastaba ah ma aha guurkani kii isugu keen horreeyey maaha waa dhaleeyo samiire aabbaheed reerkaa dhalay abtiyaashay aad baan u jalleecayaa waannu ka dhalannay laba walaalaha la kala dhalay aabbaheed haahey markaasi saa tahay aad iyo aad iyo aad waa guurkii saxda ahaa weeye ma aha inanta in gurigoodu ku soo wareego ama inaadeerkeed ama kii ayeeddada u ahayd inuu guriga ugu soo galo maaha guurku wuxuu milga ku leeyahay ama ku lahaan jiray marka la istogto ee sidaas oo kale iyo si la gudboon la isu guursado guurka saxdii waa kaa abtiyaashay aad iyo aad iyo aad iyo aad yaan idiin salaamayaa idiin soo dhowaynayaa halkaan arrinku way inooga socon doonaa haddii idamka ilaahay ka dhigo tolkayna waa mahadsan yahay sida qiimaha iyo qaayaha leh ee ay u bixiyeen hablaha u bixiyeen ama aannu u bixinayno annana waa idinka doonaynaa haddii idamka ilaahay ka dhigo xilladda waydin guraynaa ama xilladdayada waadna guraysaan markiinna iminka intaasaan kaga tegayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wuu mahadsan yahay caaqilku kolley iminkana waxaan u yeedhayaa oday maxamuud wagar oo ka mid ah odayaasha gobolka togdheer بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ماذا شوال لغا هدلو ليسو شيخ مايو لابا مدو كفتنهم بانورانيا واربالقولة دينا كوركيها برحبوشادي marka hore laba nin saamaxa oo xagga iyaga ka yimi labada ninba way dhinteen allah uu naxariisto jamacuna ha u wada duceeyo waa jaamac cabdi maxamed jaamac ganaf cadde iyo maxamed daahir qasiis masi uu yaqaanaba inkastay meyti yihiin oo in naanaysta lagu sheega aanay ahayn
labadaa waxaan idin leenahay habar xabuushay saamaxa labadii kelmadood ay idinku yidhaahdeen ka saamaxa ilaahay waxaynu ka baryaynaa inay noqdaan reerkii isku raaga isku reeya isku xidha labada qaran waxaynu nahay qaran wada dhashay oo tol ah waxaynu nahay qaran ilaa maalintii haddii baydankeeda leeyahay reer Shixisxaaq gayaanka isu noqday isguursanayay isuguma keen horeyso maanta guurkeennu isuguma horeeyo isugumana dambaynayo insha Allah wixii nool taasi markaa halkaa ayaan ku dhaafayaa waxaan kaloo doonayaa inaan dib ugu yara noqdo qiimaha habluhu leeyihiin habluhu waa wax aad u qiimo badan weeye waa tii markii ilaahay subxaanahu wa tacaala nebi aadan uu abuuray wuxuu ilaahay ka maarmi waayey inuu nebi aadan qayb ka mida jidhkiisa uga sameeyo ama uga jeexo xaawa waa xigmad ilaahiye ah waxa weeye waa arrin ilaa maanta uu garan karo ninka yacni caqliga lihi qiimaha ay leeyihiin dumarku waa hooyo waa inan waa walaal waa xaas ninku marka aanu reerka lahayn waa hebel baa la yidhaahdaa haddii wax loogu daro ina hebel baa loogu daraa laakiin marka uu reer yeesho wuu ka qiimo badan yahay reer hebel baa la yidhaahdaa miisaanka ay leedahay ama qiimaha dumarku leeyihiin waynu garanayn waa markaa halkaasaynu sidaasaynu u fahmaynaa taasi waa taa annagu inantii waannu idin siinay haddaad tihiin ardaagan marka laga hadlayo labada reer ardaagaa iminka labadaa ardaaga iyagaa boqolkiiba 70 waxay ka soo jeedaan reerkan haddaan isaga la dhalin waxa la dhalay hooyadii ama waxa la dhalay aabbihii idinkuna sidaasoo kalaatiin habluhu waxa weeye waxaa lagu masaalaa kubrigu wuxuu isku xidhaa laba badood ama laba tog ama bad iyo tog yacni webi habluhu waxay isku xidhaan laba qaran aan isaqoon laba reer aan weligood is arag laba ummadood oo aan xataa isku luqad ahayn haddii iminka aad eegto dee iminka baydhabo oo kale ama koonfur oo kale iyo waqooyi oo kale inan baa xidhiidhisa يعني waxa weeyaan waa kubri qiimaha habluhu leeyahayna waa nooca weey dadka imika jooga waxay u yaqaaneen ama ay yiraahdaan habluhu waa qiimo jaban yihiin ama waxa weeye marka dhalinyarada oo kale habluhu waa iska yani waa sidii hore ma wax noocaas habluhu waxay u qiimo jabaan ninka aan xishoonayn ee garanaynin yani ama qiimaha inantu leedahay ninka aan garanayn bay u qiimo jabaan waxaan ku darayaa inanta aanu imika idin siinay ayeeyadeed annagu konton halaad baanu ka bixin konton halaad baa laga bixiyey horta marka hore kontonkeedii baanu doonaynaa kontonkeedii yaanu idinka doonaynaa tolow abtiyaalow xafladdii ugu wacneed xaflada la galo tii ugu wanaagsanayd ayaynu isugu nimi oo reer islaama lagu dhisayo ilaahay waxaynu ka baryaynaa reerkaasi marka hore inuu noqdo reer lagu reeyo labada dhinacba cadaalad mayay tixgeliya soo dhoweeya caruur badan oo inamiyo hablaba isugu jirto inamadu badan yihiin kala hela ayaynu ilaahay ka baryaynaa waxaan kalaan intaa ku darayaa laba reeroo madaxa oo kala guursaday oo horena u kala guursan jiray oo geelu isugu jiro oo hawd ku shuraakaa dee reerku waa reerkaas dhalay ee qofba qof dhalay iminka wuu dhaafay xidide waa ilmaadeer miidhan iyo isu awow miidhan weeye sagmadda halkaa ka soo jeeda waa dee kolley abti iyo taxaggan ka soo jeedaba waxaan u malaynayaa reerka waa sidaa loo sheegay reerkii ka soo jeedaan waxaan idiin sheegayaa abti halkaynu inanta ku bixinaynaba siyaasaddaynu soo gelinaa dhinac ka saaraa moogta xafladda dhaqanka iyo xafladda siyaasadduna waa kala jaad waxa weeyaan waynu wada dhalannay waxbaa inaga dhaxeeya haddaynu isqadin iyo haddaynaan isqadin laba reeroo kala tegaya ma nihin laba reeroo kala tegaya islaamihii annagan la dhalayna midaan 50 halaad laga bixinayo midaan 40 laga bixinayo midaan 60 laga bixin midaan aan ahayn ma jirin
aad iyo aad baan idiin salaamayaa doorashadana haddii aad soo geliseen abti wagar baa soo geliyey taabtu wadi siinana wadi siinana abti shaki ha ka qabine wuxuu yidhi siciideen sarkaalku wuxuu yidhi sarkaalku siciid cismaan siciid xasan cismaan سيد حسن محمد وحي سوق القشع سوق القورته سيدي قولنا سوق القلم ما يساوي ذيك سوق القلم ما ندسينا qoyska ee aynu ku dhisnay Cabdijibaar Cabdilaahi Cismaan Cali iyo Samiire Maxamuud Maxamed aad iyo aad baan u hambalyeeynaya haddaan intaa ka gudbo anigoo ku hadlaya magaca shirkadda Iska Spearbird ama dhalinyarada reer Hargeysa ee xafladan Hargeysa uga timi aad iyo aad baan idin salaamayaa labada dhinacba inaan laba laandheeratiin annaba markhaati baanu ka nahay gooraanba hadalba isku tuurtuurayseen inaan laba laandheeratiin markiiba waan gartay anuu Hargeysa markaan joogay waxaan maqli jiray shanta burco wax la yiraahdo shanta burco markaa waa shantii burco si fiican oo wanaagsan u kala guursatay aad iyo aad baan idin salaamayaa aad iyo aad baan idin salaamayaa waa mahadsantiin xagga Cabdijibaar haddaan u yar leexiyo inankii noogu qaalisanaa ee noogu qiimaha badnaa ayaa Ilaahay siiyey Samiiro oo u qalanta Ilaahay ay isu barakeeyo gurigii lagu badhaadhay lagu barwaaqo waa Allah yeelo haddaan intaa in yar raaciyo abtiyaal aniga xaggana ay abtiyaa waxaan leeyahay marka codka la doonayo dawarsi baa lagu yar daraadee dawarsiga ku dara burkiga soo qaadanine salaanta islaamka markaan intaa ku dhaafo waxaynu halkan uga ducaynaynaa madashan aynu isugu nimi ee quruxda badan leh waa madal dhaqan weeye runtiina madasha odayaasha ayaa lahaa hadalkeeda iyo kaftankeeda waana yidhaahdeenoo way dhammeeyeen laakiin ducadii rasuulka ayaynu ugu ducaynaynaa caruuska iyo caruusadda aynu halkan meherkoodii maanta ka soo qayb gallay waxaynu leenahay baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajamcun baynahumaa fi lkhayr ow bilkhayr intaa ducadooda markaynu ku dhaafno horta teatalkayga waa saxayaaye ninka lee gaaxnuug halkii horuu ku hayaaye xagga golaha wasiirada nimanka joogaayo gobolkii waan ka tegey waa xogayaha xidhiidhka gobollada iyo degmooyinka weeye haddaan kaftanka intaa ku daro halkaa markaan soo fadhiistay horta aniga waxaa layga marti qaaday dhinaca inankaa layga marti qaado ninkaa reecaynaa sheellaindhaaraha baa marti qaaday saasaanan safka horta dhinacaa uga soo galay dhinaca lagaa marti qaaday inaad fadhiisataana waa waajib weeye nin aanan maadeernahay baa soo kacay oo dhegtugiisaana wuxuu igu yidhi war miyaad cadhaysantahay maxaad xaggaa u tagtay war waxaan ku yidhi war mee dhinacaasaa layga marti qaado martiqaadkii baan halkaa u fadhiistay xaflad baynu isugu nimi goob farxadeed ah oo ay reer aynu ku dhisnay Cabdimajiid iyo Samiira waxaan leeyahay barakallahu laka wa baraka calayka wa jamaca baynakumaa fi khayr ducada ka bacdi waxaan jecelahay dhowr kelmadood oo kaftan u badan inaan halkan la wadaago abtiyaashay kullay maayirkii hore magaalada oo isagana aan abti u ahayna uu jooga anigana abti ah rag kale oo badan oo odayaalina way joogaan niman badan oo reer Hargeysa say sheegeenna way joogaan inkastoo qolada reer Hargeysa ay reer magaal yihiinoo aan xasuusinayo labada arday halkan reerka ku kala sameynaya midina shanta reer kama tirsana halkaa markaa waynu iska saxaynaa qolada reer Hargeysa ilaahay waxaan ka baryaynaa guriga iskunay ee yagleelay ilaahay Allah ha barakeeyo cirka madar caamo mucaamama Allah inaga siiyo ummad meel wada socoto tawfiiq leh Allah ina siiyo khaatmasan Allah ina siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa waxsan aakhiriya adduunka Allah ina la kulmiyo awlaadana Allah isu barakeeyo